madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Copenhagen ee waddanka Denmark ayaa ka hadlay laba arrimood oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya kuwaas oo kala ah khilaafka isaga u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed iyo waliba maamulkii dhowaantan looga dhawaaqay magaalada Baydhabo kaasoo lagu doortay madaxweynaha maamulkaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha Soomaaliya oo horreyn ka hadlayay khilaafka u dhaxeeya isaga iyo ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in arrintaasi lagu dhammaynayo hay'adaha dowladda u yaala isla markaana loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ay aaminaan shuruucda u taala waddanka Soomaaliya wuxuuna sidoo kale sheegay in beesha caalamka looga baahan yahay inay taageerto Soomaaliya isla markaana aan soo faragelin arrimaha gudaha u yaala Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud arrintaasi ka hadlayna wuxuu yiri waxaan rabaa arrinta siyaasadda Soomaaliya laga hadlayo arrinta siyaasadda laga hadlayo waxay joogtaa level oo wali institutionska qabaayil saystibaad baqashay soo shaqada isku haysta gobollo iyo dawlad goboleedyada saystibaad baqashay institutionskeena haddii aanay exercise garaynin siyaasadda goor bay bislaanayaan haloo daayo institutionska siyaasadda inay matalaan waa loo doortay ayagaan u dooranay waan ku aaminay gacantay ku hayaan hadday tahay madaxtooye hadday tahay xukuumad hadday tahay baarlamaan laakiin haddii aan mar walba wax dhacan baan ka soo jeedno dhahno bannaankan maxaa la aadaynaayo institutionska waa sidan institution wilkood ma bislaanayaan mana qaangaarayaan si ay u qaangaaraan waa inay mashaakilada xalliyaan aan wax yar dulqaad yar aan muujino aan siino wax khatar ah dalka kama jiraan qatar siyaasadeed iyo qatar amni iyo qatar hal qatar iyo hal cadawaan qabnaa waa al-shabaab waana wadnaa dagaalkiisa maanta la joogo u socda Soomaaliya way ka soo gudubtay markii qoralka tala soo qaatay isxabadeen jiray waxaa laga hadlayaa mar walba waa siyaasadana waa lagu kala aragti duwanaadaa sida baarlamaanada ama dowladaha adduunka oo dhanba ka jirta marka arrintu way socotaa Soomaalida hay'adaheeda baarlamaankeeda xukuumadeeda wali yani hawsha gacantay ku hayaan hawshaana Soomaaliya iskale Soomaalida ay u taalaa inay xallisato dadka caalamka wayna kaalmeyn karaan ra'yi way noo sheegi karaan waxyaabo ay dareemayaan ama rabaan waa noo sheegi karaan laakiin ultimately waa xalka laga sugayo waa Soomaali gaar ahaan baarlamaanka Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed waxa laga sugayo kalsooni buuxdaan ku qabaa in ay muxuu ahayd taariikhdeena dhaweyd haddii dib loo eego markii waxaan oo kale yimaadaan dadaa dhiig ka daadan jiray dadaa muxuu ahay la daqarayn jiray maanta ma ayan dhicin marka rajaxuma hab yeelatay ma jirto sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa aqoonsaday maamulka cusub ee looga dhawaaqay magaalada Baydhabo isagoona u hambalyeeyay dadka dhistay maamulkaas wuxuuna xusay in wixii ka dhiman dib looga dari doono iyadoo isagoo arrinkaasi ka hadlayna wuxuu yiri marka arrinta koonfur galbeed runtii anaga waa ka soo saaray statement yani waa talaabo hore loo qaado oo dhinaca saxda ah loo dhaqaajiyay laakiin waxay u baahan tahay wali dhamaystir iyo qurxin haddii dadka maqan jiraan lagu soo daro haddii nidaam ka dhiman uu jiro loo dhammaystiro iyo mar walba dowladda federaalka inay hoggaanka dhammaystirkaasi dowladda federaalka ay leedahay dowladda federaalka ay dhammaystirin doonto waxaan rabnaa inaan marka koowaad horta dadka koonfur galbeed degan oo aan baryayno marka labaadna inaan u sheegno wax badanaa naga dhiman waxa naga dhiman aan u diyaargarowno inaan wada dhammaystirno ayadoo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay mar walba hoggaanka dhammaystirkaasi ay ayda leedahay isku soo wada duuba Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda ku sugan magaalada Copenhagen ee waddanka Denmark ayaa halkaas uga qayb galaya shirka New Deal ama hiigsiga Soomaaliya kaasoo maalinta biri ah lagu soo gabagabay doono magaalada Copenhagen bila gurxan Kalsan TV magaalada Copenhagen ee waddanka Denmark